saynisyahano ku takhasusay baaritaanada xagga dhulka ah iyo taariikhaha ayaa qodaya meel ku beegan gunta hoose ee masaajidka barakaysan ee Aqsa ee magaalada Qudus ayagoo baaraya raadad hore oo taariikheed. baarayaashani oo ah Israa'iiliyiin ayaa qodaya god hoosta u qodan ilaa 15 mitir oo ku beegan gunta hoose ee masaajidka barakaysan ee Aqsa. arrintan waxa ay ka caraysiisay muslimiinta oo masaajidka uu u yahay xarunta saddexaad ee ugu barakaysan diinta Islaamka. yahuudda waxa ay aaminsan tahay in meesha ay qodayaan uu ku ooli jiray macbad ay barakaystaan kaasoo ku dambeeyaan raadad muujinaya jiritaanka Alle sida iyagu ay aaminsan yihiin. waxaana jiray isku dayo hore oo lagu qodayo masaajidka hoostiisa ayadoo la rumaysan yahay in halkaas ay ku luntay loox bir ka samaysan oo ay ku qoran yihiin 10 awaamir oo dhanka Eeba ka yimid sida ay rumaysan yihiin yahuudda. Falastiiniyiinta waxa ay aaminsan yihiin in waxani ay yihiin been abuur looga marmarsiisoonayo in lagu dumiyo masaajidka barakaysan ee Aqsa meeshana looga tirtira astaanta Islaamka oo dhan. godkan la qodaya ayaa keeni kara in masaajidka uu dumo. Zahra Ali Samsat, Nairobi.